muddooyinkii dambe deeq ururin ballaaran oo laga waday magaalada Boosaaso taasi oo dadka wixii dhibaatada ugu xoogan ay gaartay loogu cawad celinayo looguna soo celinayo suuqa ay ka baxeen ayaa si habsami leh uga socotay meelo badan oo ka mid ah magaalada. haddaba deeqdaasi ay wadeen dadweynaha, ardayda jaamacadaha iyo culimada magaalada Boosaaso ayaa lagu wareejiyay rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Puntland, iyadoo kadibna rugtu lacagahaasi ay iyadoo ku salaynaysa tirakoobkii ay samaysay iyo dadka la islaha way ugu daran yihiin dhanka dhibaatada waxa ay ku qaybisay gudaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee magaalada Boosaaso. dadkaasi ayaana intaasi kadib ka mid noqday ganacsatada suuqa dib u soo camiray. maamulka Soomaaliyeed ayaa tiraahda rag waa kii kufa oo haddana kaca, taasi oo loo adeegsado marka dhibaato ay dhacdo sida dhabar adeeg leh ee uu qofku uga soo kabto isagoo is-ilowsiinaya wixii hore ee dhacay. taasina waa mid ka muuqata suuqa Boosaaso marka aad booqato, waxana iyadoo aysan jirin kaalmo hay'adeed iyo mid dawladeed oo xoogan ay dadku dambaskii hareeyay suuqa 6 bilood ka hor u bedeleen badeeco qurux badan. dadka qaar ee ula kulmay telefishinka Somalisat ee magaalada Boosaaso oo ka mid ah ganacsatada suuqa dib u soo camiray ayaa qaarkood u sheegay telefishinka in arrintaasi ay u sahashay iyagoo taageero ka helay qaar ka mid ah eheladooda, halka qaar kalena ay noo sheegeen inay u baxsadeen keed dhaqaale oo meelo kale u yiilay. si kastoo ay haatana waxa uu bantiya in ganacsato badan ay soo rogaal celiyeen, halka qaar kalena ay duruufo dhaqaale oo haysta awgood iyo wixii ay haysteen oo ka gubtay ay dib suuqa ugu soo laaban waayaan. qaar ka mid ah ganacsatada iyagoo gadaal u fiirin wixii soo maray ee dadaalka ganacsi la soo laabtay keenana alaab ka badan tii hore ee ka gubatay ayaan wax ka weydiinay sida ay uga soo kabteen dabkii qabsaday suuqa Boosaaso 6 bilood ka hor, waxyaabaha saaciday iyo dhaqdhaqaaqa suuqu hadda sida uu yahay. suuqa waa magacaygu waa Axmed Aadan saahoreedii ku sheegay barnaamijka suuqa daadin kaga waramo. suuqa aad u fiican yahay dhaqdhaqaaqiisa iyo macnaha ganacsigiisa, inkastoo hadda lagu jiro bilihii xagaabaxa aad buu suuqu fiican yahay. dababkii faraha badnaan waa laga soo kabtay, ilaahay mahadi weey, alxamdulillah. ilaahay baa min nooca wad celiyay, waan ka soo kaban dababka xoog badnaa. marka suuqu hadda sidiisii hore ma u dhisan yahay mise wali waxba ka dhiman? waa ka qurux badan yahay sidiisii hore, aad iyo aad buu qurux badan yahay. marka cooshadu ahaa haddana u jeedaa hoolalka laga dhisay oo hararka loo sameeyay. meel kasta suuq kamid ah wuxuu leeyahay harar fara badan oo weyn aad u ballaaran buu leeyahay. muddo intee lag ku qaadatay soo kabto? wallaahi muddo waxay ku qaadatay ilaa iyo 6 bilood ugu yaraan 6 bilood. hadii suuqu wuxuu gubtay 2011 bishii 12aad saddexdeedii buu gubtay. لهذا إلا هذا حكوجنا لبي تونك بيش اللي حد حكوجنا أفرتيدي مركا أدب وشوك في السوق عادي. دقائق جناحسي مركا هري هذا كيف يعني؟ لأنه جو سكمدوا السوق وهذا بواسي معنا على رأيه كحرنا السوق لماذا؟ يحب معنا السوق وحلو يبسدوا يدك سفر السوق قالوا هذا الحلي حاجة به بالوجرايو ما شاء الله السوق كيف يعني. ما شاء الله وإلهي مهديس 6 bilood kadib waxaa si weyn looga soo qabtay dabkii xoogana ee khasaaraha burburka ay geystay magaalada Boosaaso ee suuqa magaalada weyn ee Boosaaso. dadku waxa ahaayeen dad xirfad u leh howlaha ganacsiga ay ahaayeen. dadkaas isla markiiba waxay muujiyeen in ay bilaawaan xirfadoodii shaqo ee kala gedisnaa kadib marka ay sameeyeen lacag kala gedisan ninkii meel amahan karay, ninkii lacag loo soo diri karay, nin walba wuxuu ku heli karaa ayuu ku bilaabay shaqadiisa ganacsiga. haddana waa ilaahay mahadiis aad ayaa looga soo qabtay ayaa la oran karaa khasaarihii weynaa ee magaalada Boosaaso aad ayaa hadda looga soo qabtay. dadka danyarta marka hore dadku waxa ay dad xirfad leh. qof bilaawgan hadduu xirfad leeyahay ama wax yar ka soo kabto ama wax badan ka soo kabto dadku waxa la oran karaa 90% dadku waa soo kabtay. dib kaliya ama qof oo haatan shakhsiyaad oo kooban oo hadda suuqa ka baxay waa jiraan duruufo awgeed, laakiin hadda 90% waxa la oran karaa dadku waxa dad xirfad leh oo wax soo saar leh. dadkiina 90% dad soo kabtay aad iyo mahadiis haatan dadku waa soo kabteen. dadku suuqa ka baxay ilaa haatan dadku waa yariin, dadku waa aad u taageerayeen dadku maadaama aad xirfad lahaayeen. mustaqbalka uu leeyahay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso waa mid weyn. marka hore istiraatiijiyadda uu suuqa u sameysnaa waxaan la soo gali karin ay ahayd, laakiin hadda wuxuu u sameysan yahay tan blind aadan si weyn loo qorsheeyay
wadadii weynooda markii hore halbowlaha ahayd oo suuqa magaalada Boosaaso weyn ku fadhiyay waa la baneeyay haatan waxa la sheegayaa wadadaas in laami la marin marka haatan guriyo kala durugsan iyo markii hore magaalada cooshada dusha ay ka saarnayd oo haatan loo sameeyay plan weyn iyo jingada weyn oo gambis loo sameeyay mustaqbalka ama himilada suuqa magaalada Boosaaso daro weyn ay haatan maqaana meelay sandaqada ahaay oo kale haatan meeshaan hadda hor joogno sandaqada ka dhisnaa haatan dabaqa weyn oo naga dambeeyo oo jeeda background ka ka dambeeyo oo jeedeen aad u weyn yahay himilada ama hadafka suuqa magaalada Boosaaso higsanayo waa ka duwan yahay kii hore بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين إذا dadka musiibada oo dhacay ka dhacay gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ummadda Soomaaliyeed ku dhacay dhamaantood marka si aad u ogaataan in sida dadku uga soo kabtay aan u maleynay inay tahay arrintan maanta barnaamijkan oo waddaneen inaan dadku soo boqotaan raantii waa dareemaysaan waddankan waa laga soo kabtay laakiin dadku iskood iyaga Soomaaliyeed cid taageerada ma jirin aad iyo aad baa laga soo kabtay dadkuna iyaga iskood ma garanaysaa si soo gartay inay maartay si kastaba haatay inay iyagu insha Allah ka soo kabtaan waana dareemaysaan bilicda iyo dhulka sida ay yihiin iyo suuqa hore iyo suuqan farka u dhaxeeya dadkuna iyaga cid taageeray ama dawladda haato ama hay'adaha haato inna ma jiraan iyagaana dadku iskood ay xaqooda ka siiyay iyagaana haatan waad u jeedaan arwooyinka dhulka sida soo kabteen marka dadku marka la fiiriyo dhismayaasha oo kale muddo kooban baa lagu dhisay dhammaan agabkii waxyaabaha u baahnaayeen waxa soo kharasha marka waxaad leedahay dadka ama dibadda looga soo diro ama dalka looga maamulo waa isdabareen taas okay waa isdabareen dadka Ilaahay baa la qabtay dadku waxay dad hay'ad fircooni dheeraad haya inay dib u soo nolol maalmeedkooda soo ceshadaan ba jeclaan dawladuna waa ka ballan qaaday inay dib iyagu u dabadejinayaan markay musiibada qaran ku dhacday kulli wasiirka amniga iyo duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka inta noo yimaadeen runta ganacsi tirkoob dhabay sameeyeen ka sameeyeen dadka waxay dhaheen annaga dib u qabanayno waayo ilaa iyo 100 iyo siyaadaha hay'adda jooga magaalada gobolka bari markii la dhahan gobolka kala leeyahay intaas oo dhan wax ka shaqeeyaan wixii musiibooyinka dhaca dabka kale abaaraha waxyaalahaas oo dhan ka shaqeeyaan marka waxay ballan qaadeen inay dib waxa soo dhan dib u tijinayaan oo dib way u qabanayaan laakiin taas ma dhicin lama hayo sadogtiin xogaa yar oo dadka ganacsi qaybisay oo culimada iyo dadka dadweynuhu iska ururiyeen mid dadka la liitay wax yar oo aan qiyaas ahaan aan hadda sheegi karin ay u qaybiyeen marka saadaradeed in dadka cashuur baa laga qaadaa wanaga waxaan cashuur baa laga qaadaa waxna dad muwaadiniin oo wax walba ma garanaysa dadkii Puntland ganacsadayaasha marka saadaradeed dadku waxay leeyihiin in dib ma garanaysa loo fiiriyo oo ma garanaysa dawladdu waa meesha ka dhisan dawladana shacabka u dhisan tahay marka in maanta taas ma dhicin asaata dadku iyaga dib ilaahay xaqiis baa laga siiyay waan aragtaan bilicda dib baan insha ganacsiga u soo noqonaya insha Allah kii hore Qaasim Boosaaso suuq weynaa mid la midaba insha Allah sameeyo ka sabr badan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتولا اللي أنا مقعي وحلي هذا عبد القادر محمد علي بقال هدي أن كاغور رمورت ولا له سوق هذا بوساسو وسوق هذا معني هذا بلارن سوق يهرق وبتي وضد ويناد معني وجبتي هذا وان كسو ضدك وضد الدجنابان هاي وسوق وين وهرق وبوساسو أتغني ضدك الدجنابان هاي هذا سوق صبح إلا اللي راه فرني سوق هذا دقلنا هاي الحمد لله رب العالمين وتعالى وفي عنها هاي هذا صفة عم بقول صوك ما شاء الله إلهي وما هذا سكله marka arwadaadu waxa ku jirtay ama mahayradaadu waxa ku jirtay mahayradaadii hadana aad ka soo qaadeen ilaha marka la fiiriyo maadaama hay'ad iyo dawlad aysan kaalmo badan leeyihiin sidee yaad kaashateen horta ilaahay baa mahad iskale bismillaahir rahmaanir rahiim horta inna ilaahay baa mahad iskale inna ma kaashan waa soo kabanay
hadda waad aragtaa carwadan ballaaran baan joognaa alxamdulilah rabbil caalamiin macnihii waa wax ilaahayna siiyey ilaahay baan mahad iskale ilaahay baan xamdu noqoynaa dabcan haddee cidnana hay-ad iyo dowlad iyo macnihii dadna wax saas cidna waxba nama siin hadda ilaahay baana siiyey haddana alxamdulilah rabbil caalamiin waa ladanna waa ka soo kabannay dabkii si fiican baa uga soo kabannay suuqaan fiican awgeeduna ballaaran baan noo furnay hadda ilaahay baan mahad iskale alxamdulilah rabbil caalamiin cidnana macnihii waxba macnihii nama siin cidnana nama taakule ma garad maasha allah dhaqaaq aad u fiican yahay suuqa waad aragtaasi wax looga gadanayo dadku si u yaacayaan u marmarayaan haddee adba waa dareemi kadhaa macnihii shucuurta suuqa dad si fiican baa u gadanayaan suuqa weyn waa la bartay suuqa dabcan dee dhinacaan u soo wareegay si fiican oo wanaagsan baa suuqa loo bartay macnihii si fiican waxaan kaga gataa alxamdulilah rabbil caalamiin ganacsatada qaar ayaa qaba in dadkii danyarta ahaa ee meheradaha yaryar iyo kabadhada ku lahaa suuqa kuwaasi xoogaagii ay haysteen uu ka qaaday dabkii qabsaday suuqa aanay suuqa dib ugu soo laaban loona baahan yahay sidii loogu soo celin lahaa والله isbedelo badan baa dhacay maxaa boqolkiiba 9 dadkii yaryara suuq way ka bixeen boqolkiiba 9 dadkii yaryara suuq way ka bixeen dadkii hadda isku soo kabtay oo macnaha wax isku soo doontay oo isku soo urursaday mooyaan dadkii yaryara dhaqaalahoodii hoos ahaa oo aad u liitaan suuq way ka bixeen haweenka oo kaalin mug leh ku lahaa suuqa ayaa waxaa muuqata in suuqa dib ay ugu keeneen badeecooyinkii hore loogu bartay sida dharka dumarka dahabka shoppingka noocyadiisa kala duwan iyo alaabaha guryaha suuqa cusub ee hadda loogu magac daray Hilaa ayaa waxa xilligan ka socda dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u heer sareeya waxaana u soo shaqo taga subax walba boqolaal dad kuwaasi oo cashar ka qaatay suuqii hore ee gubtay kaasi oo galaaftay lacag kor u dhaafaysa 15 milyan oo dollar sida lagu sheegay qiimeynta khasaarihii ka dhashay dabkaasi niyada ganacsi ay qabaan dadka xilligan suuqa ka shaqeysta ayaa ah mustaqbal ganacsi oo hor leh iyagoo ku tanaadaya inay soo jiitaan macmiil hor leh isla markaana dib u soo ceshanaya kuwii hore ee ay kala dhex gashay dhibaatadii dabka